Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka jalalkeena Daynila TV ugu door karoon waxaana ka mid noqonaya shacabka magaalada Muqdisho ma ka bixi karaan loolanka adag ee Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh iyo Farmaajo. Xamar yaa u maqan oo ka qabta kuwa sidan u galay. Warbixin ayaan idinkugu soo gudbin doonaa maqaal dheer. Ma laga yaabaa inuu Axmed Madoobe iscasilo muxuuse ku dambeyn doona mustaqbalka. Saadaalin xoog leh ayaan ku soo qaadan doonaa warkeena. Gudoomiye Mursal oo ka hadlay qorshaha waqti kororsiga ee baarlamaanka Soomaaliya. Gudoomiye Cumar Finish xilka dowladda waxaa loo salaxay ciyaalka xaafadda. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo shaacisay qorshe dib loogu soo celinayo qaar ka mid ah safaaradaha Soomaaliya ee dalalka caalamka. Daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobadii wararkeena jalalka Daynila TV ugu door karoona. Iminkana intaan u gudagelin iyagii oo faahfaahsan waxaan marka hore idiin xasuusinaynaa inaad nagu soo biirtaan janalka subscribe saartaan sidoo kale gambaleelka aad furataan si aad uga mid noqotaan daawadayaasha ugu horeeya ay wararkeena u soo dhacaan. Haatanna ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa wada qorshe dib loogu soo celinayo qaar ka mid ah safaaradaha Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa wada qorshayaal ay sheegtay inay dib ugu soo celinayso safaaradda dowladda Soomaaliya ama safaaradaha dowladda Soomaaliya ay ku lahayd dalal badan oo caalamka ka tirsan. Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Dowladda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay wado qorshayaal dib loogu soo celinayo dalal badan oo ka tirsan dalalka caalamka safaaradihii ay Soomaaliya ku lahayd. Axmed Ciise Cawad wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in arrintani ay soo celinayso sumcaddii ay ku lahayd Soomaaliya dalalka caalamka. Waxa uu sidoo kale sheegay inay horseedi doonto sii adkeynta xiriirka dowladaha caalamka ay kala dhexeyso ama ay kala leedahay dowladda Soomaaliya. Arrintan ayaa ku soo aadeysa xilli madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu magaalada New York ee dalka Mareykanka uu dib xariga uga jaray safaaraddii Soomaaliya ee dalka Mareykanka. Cawad ayaa sidoo kale ka hadlay in 30 sano kadib dowladda Mareykanka ay dib u furtay safaaraddii ay ku lahayd Muqdisho. Waxa uuna sharaxay muhiimadda Soomaaliya u leedahay furitaanka safaaradda Mareykanka uu ku lahaa magaalada Muqdisho. Gudoomiye Cumar Finish ayaa sheegay xilalka dowladda waxaa loo salaxaa ciyaalka xaafadda. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa khudbad ka jeedinayay munaasabad lagu soo dhaweynayay taliye ku-xigeenka cusub ee booliiska Soomaaliya Cismaan Cabdulaahi Khaliif ayaa ka hadlay habka madaxda dowladda u maraan xilalka ay magacaabayaan. Waxa uu sheegay in madaxda dowladda federaalka ay xilal u salaxaan ciyaalka xaafadda ha yeeshee uu rajeynayo in qaarkood qaadan doonaan rajo weyn uu ka qabo inay la yimaadaan isbeddel ka duwan madaxdii ka horeysay. Runtii xilalka dowladda waxaa loo salaxay ciyaalka xaafadda, balse waxaan rajeynayaa inay doorkooda qaadan doonaan kana duwanaan doonaan kuwii ka horeeyay iyaga. Cismaan Cabdulaahi Xijaar, Jenaraal Bashiir Maxamed Jaamac iyo Wasiirka Amniga waxaan isla nahay ciyaalka xaafadda, ayuu yiri Gudoomiye Cumar Finish. Munaasabadda oo lagu qabtay xarunta tababarka ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa sidoo kale ka qayb galay Wasiirka Amniga Gudaha ee Dowladda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale, Ra'iisul Wasaarihii hore ee Dowladda Soomaaliya Cali Maxamed Geedi, saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo maareeyaha guud ee wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed. Hadalka Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish ayaa ku soo aadaya xilli madaxda dowladda federaalka ay xilalkii ugu badnaa ay u magacaabeen dad dhalinyaro ah kuwaas oo aanan khibrad badan u lahayn xilalkaasi. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal ayaa ka hadlay qorshaha waqti kororsiga ee baarlamaanka Soomaaliya ee dhex wareegaysa siyaasadda Soomaaliya. Kulankan u dhaxeeyay Gudoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxaa labada dhinac ama labada madaxweyne loogu weydiinayay aragtidooda ay ugu dari lahaayeen qabyaatirka dastuurka Soomaaliya. Guddiga uu u xilsaaray Gudoomiye Mursal
kaas oo u xilsaaran inay kasoo talo bixiyaan sharciga doorashooyinka ee golaha shacabka horyaala, ayaa kulamo la soo qaatay kal hore madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, kaas oo haatan la doonayo in la horgeeyo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kolka uu furmo kalfadhiga 6. Sharcigan ayaa dhaliilo fara badan ay u soo jeediyeen siyaasiyiinta mucaaradka iyo asxaabta siyaasadeed ee Soomaaliya ka jira, ayna dalbadeen guddiga doorashooyinka qaranka in laga soo talo bixiyo tabashooyinka laga qabo laguna soo wareejiyo kolka lasoo ansixiyo. Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa madaxweynayaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kan Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare uu u sheegay in aysan jirin wax ku darsi ah muddo xileedkoodana ku aadan, maadaama hadalhaynta ugu badan ay tahay arrintaasi. Dhowaan ayay ahayd markii qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay sheegeen inuu jiro qorshe la doonayo in waqti kororsi loogu sameeyo baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka digay in waqti kororsi ay sameysato dowladda Soomaaliya, isla markaana ay kaliya ku qanacsan yihiin in doorashada lagu qabto waqtigeeda. Dowladda Soomaaliya ayaa horey loogu eedeeyay in ay dooneyso waqti kororsi 2 sano ah, inkastoo madaxweyne Farmaajo uu waqti sii horeeyay sheegay inaysan jirin cid waqti kororsi sameysan karto. Ma laga yaabaa inuu Axmed Madoobe is-casilo? Muxuuse ku dambeyn doonaa mustaqbalka Jubbaland? Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamul goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalk Soomaaliya ayaa qalqal gelinaya dadaalka ay beesha caalamka ugu jirto sidii xasilooni loogu soo celin lahaa waddanka ku yaala Bariga Afrika. Muranka u dhexeeya labada dhinac oo muddo dheer soo jiitamayay ayaa hadda u muuqda inuu sii qoto dheeraaday wixii ka dambeeyay markii ay bishii Agoosto magaalada Kismaayo ka dhacday doorasho dood badan dhalisay. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa dib loogu doortay xilka madaxweynaha Jubbaland. Tallaabadaas ayaana kasii careysiisay mas'uuliyiinta dowladda dhexe oo doonayay inay la socdaan habsami u socodka hanaanka doorashadaasi. Dib u doorashada Axmed Madoobe waxaa gaashaanka u daruurtay wasaaradda arrimaha gudaha ee heerka federaal, waxaana sidoo kale ka biyo diiday 2 hogaamiye siyaasadeed oo gobolkaasi kasoo jeeda, kuwaas oo iskood isugu dhawaaqay inay madaxweyneyaal ka yihiin Jubbaland. Khilaafkan ayaa dhinaca kale wiiqay xiriirka dowladaha Kenya iyo Itoobiya, gaar ahaan wada shaqeyntooda dhinaca militariga ee qeybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM. Axmed Madoobe wuxuu muujiyay inuu diyaar u yahay inuu wadahadal la galo dadka oo dhan oo ay ku jiraan siyaasiyiinta mucaaradka ah, balse weli arrintaas aysan ka jawaabin dowladda federaalk iyo hogaamiyayaasha siyaasadeed ee gobolka toona. Hase ahaatee, Axmed Madoobe qorshaha uguma jirto inuu xilka iska casilo, in la afgembiyana ma sahlanaaneyso. Al-shabaab ayaa dhankeeda isku dayeysa inay ka faa'iideysato khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada qaarkood, sida ay muujisay xog ururin ay sameysay waaxda warqabadka ee laanta afka Soomaaliga ee BBC-da. Waxa kale oo ay xogta qeexaysaa in dadka uu ku jiro xanaaqa dhinaca qabiilka ay ku biiri karaan Al-shabaab. Khilaafka Jubbaland ayay suurtagal tahay inuu sidoo kale sii xoojiyo xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexeysa dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, taasoo salka ku haysa muranka xadka badda ay labada dal isku hayaan. Goor horeba waxaa soo baxay in khilaafka Kenya iyo Soomaaliya ee sii weynaanaya uu wiiqay dagaalkii lagula jiray Al-shabaab. 29 bishii Sebtembar, Kenya waxay Soomaaliya ku eedeysay inay ogolaatay in sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Al-shabaab uu soo raaco diyaarad ku wajahneyd magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Xamar yaa u maqan oo ka qabta kuwa sidan u galaya. Xamar waa magaalo aad u nasiib daran markay deegaan ahaan u noqotay dad aan dareensaneyn qiimaha ay u leedahay Soomaalida oo dhan. Waxaa la xaqiijiyay in dadka ku nool aysan wada jecleen magaalada,
sababtaasna waxaa dadka qaar ku fasireen inay salka ku hayso takoorid iyo quursi loo qabo dadka ku abtirsada. waayo xamar cid walba waa soo dhaweyneysaa, cidna ma faquuqdo ilaa la gaaray heer la yiraahdo waa xarunta ummadda ka wada dhexeyso. xamar waa meel la wada leeyahay haddana la kala leeyahay, waana soco weysay fikraddii ahayd keyga lihi kaagana kula lihi. qormadan gaaban waxay iftiiminaysaa arrimaha hadda ka jira xamar. meel kasta waxaa la xiray ama waa la xiray, dadkuna isuma socon karaan, meeshay rabaan ma gaari karaan, mana soo muuqato in wadooyinka furmi doonaan mustaqbalka dhow. intaas waxaa dheer in labadii dariiq ee xamar halbowlaha u ahaa ee tegayay jowhar iyo afgooye laga tala baxay in la dayactiro oo dib loo dhiso, iyadoo sabab looga dhigay nabadgelyo la-aanta soo wajahday injineeradii Turkida ee dhisaysay oo shabaab meeshii ka bursaday. dowladdii laga sugayay inay tallaabo ka qaado waxay u wareejisay mashruucii dhismaha wadooyinkaasi lagu dhisi lahaa safaarado. walle waa yaab. deeqda dowladda Qatar waxaa u diiday in lagu dayactiro ama lagu dhiso wadooyinka burbursan ee magaalada gudaheeda marka lala aadayo dibadaha. aaway dadkii arrimahan ka hadli lahaa? aaway baarlamaankii? mise wuxuu noqday golihii shacabka ee jaalasiyaad? ma la heli doonaa dad arrintan ay khusayso oo ka hadli kara bahdilidda lagu hayo xamar? waxaa qoray Axmed Calisow. shacabka muqdisho ma ka bixi karaan loolanka adag ee Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh iyo Farmaajo? inkastoo ay hogaaminta Soomaaliya ka gaareen heerkii ugu sareysay oo ah kursiga madaxweyne ee dalka looga taliyo, islamarkaana aysan ku yareen da iyo aqoon, waxaa muuqata in weli ay ku dul hardamayaan shacab daalan oo u baahan badbaado iyo nolol wanaagsan. dhammaantood waxay raadinayaan dano gaar ah iyo masaaliix aan ku salaysnayn dan guud, sida ay qabaan inta ugu badan shacabka magaalada Muqdisho oo soo arkay hogaaminta saddexdan siyaasi ee isku haya hogaaminta Soomaaliya. dadka aan ka hadlayno waa madaxweyneyaasha kale ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo toddobaadyadii lasoo dhaafay loolan adag ku dhex mariyay magaalada Muqdisho. shacabka gobolka Banaadir waa dad daalay oo ay daashatay amni daro, shaqo la-aan iyo cadaalad daro. intaas oo dhan waxaa usii dheer in hogaamiyaasha Soomaaliya ay uga baxeen balamo ay horey ugu sameeyeen. sidoo kale waxaa shacabka keliya ee aan matalaad ku lahayn dowladda Soomaaliya ay iyaga yihiin dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, sidoo kale aan haysan maamul madax bannaan, wax u soo dhicin karana xuquuqdooda kaga maqan dowladda aysan jirin. intaas oo dhan markii loo eego iyo loolanka socdo, shacabkan dhibaataysan ma ka bixi karaa loolanka Farmaajo, Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud? ma laga yaabaa in siyaasiyiintan ay dib isugu laabtaan oo ay ka fikiraan dhibaatada haysata shacabkan, kadibna ay go'aamiyaan mustaqbalka dadkan dhibaataysan? si gaar ah madaxweyne Farmaajo ma laga yaabaa inuu garowsado qaladaadkiisa kana joogsado caburinta uu sameeyey ama uu ku sameynayo ee hogaamiyaasha falcelinta madaxdii isaga ka horeeyay ka sameynayaan? markii laga soo tago loolanka iyo isjiidka siyaasiyiintan, ma laga yaabaa in shacabka magaalada Muqdisho ay ka shaqeeyaan dantooda iyo badbaadada naftooda, maadaama ay martigelinayaan khatarta Al-shabaab iyo khatarta siyaasiyiinta danta gaarka ah ka leh magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya? waxaa qortay Safiya Cabdulaahi Garaad. ugu dambeyntiina, maxkamadda ICJ ayaa kulan isugu yeertay Soomaaliya iyo Kenya kadib codsi ka yimid dalka Kenya. maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa kulan degdeg ah ugu yeertay Soomaaliya iyo Kenya oo ka dhexeeyo buran dhanka xuduudda badda ah, sida ay sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay. arrintan ayaa timid kadib markii Kenya ay codsi cusub u dirtay maxkamadda, iyada oo dooneysa in dhageysiga kiiska mar kale dib loo dhigo ilaa bisha Sebtembar ee sanadka 2020. maxkamadda ayaa horey u ogolaatay codsiga Kenya ee ahaa in kiiska dib loo dhigo, waxaana dhageysiga dacwadda oo markii hore la qorsheynayay 9 Sebtembar dib loo dhigay ilaa 4 bisha Noofembar ee soo socota. codsiga cusub ee Kenya ayaa waxaa si xoogan uga horyimid Soomaaliya oo ku adkeysatay
go'aansatay in kiiska la dhageysto 4 November sida maxkamadda ay horey u qorsheysay. Sida aan xogta ku helnay, waxaa hadda magaalada Hague ee xarunta maxkamadda ku sugan Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo qareenka guud ee Kenya Kinandi Oginda. Maxkamadda ayaa la filayaa inay maalmaha soo socda ku dhawaaqdo go'aankeeda ku aadan codsiga cusub ee Kenya kadib marka ay dhageysato wakiilada labada wadan ka kala socda sida ay sheegeen ilo wareedyo. guud ahaan halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad kala socoteen janalkeena Daynila TV. intaan warkan warkiciga u kulmi doono annagoo isku duwan bahdayaga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano Allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.